shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharaxa madaxweyne ee dowlad goboleedka Puntland Maxamed Siciid Xirsi Morgan oo shaaciyay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland. shacabka reer Laascaanood ayaa hambaliyo bogaadin ay ku taageerayaan musharax Mujaahid Morgan hawada u mariyay iyaga oo sheegay inay si weyn u taageersan yihiin mujaahidkaasi. ummadda Soomaaliyeed ee magacayga muuqay garanaysa marka hore waan salaamaya salaamka bacdi musharaxnimada Puntland ee musharaxa ka yahay Morgan Siciid Xirsi Morgan runtii ninkii kan xayaa kan waa musharax Puntland waa madaxweyne Puntland waa ila tahay Cabdiweli meesha iskaga dago wixii hadda ka dambeeya waa macnaha kuma sii harin kursi dambe Cabdiweli uu ku dhashado ama loogu celiyo ama si doorasho ka sii galo ummadda reer Sool Sanaag Cayn ee aanu nahay ee aan ka tirsanahay maamul goboleedka Puntland mid walba anagu waxaanu dooranana oo kaliya laabo dooranana Maxamed Siciid Xirsi Morgan inuu noqdo madaxweynaha Puntland maanta oo isla markiisa lagu eego waxaan leenahay war sii Morgan madaxweynuhu waa Morgan madaxweyne ku taageerana hadana gobolada Soomaaliya ka soo jeedno shacabweynaha oo ku siiyeen waana ku taageersanahay madaxweyne waxa noqonaysa kii gobolka Soomaaliya iyo Caynba soo xareenaha xuduudna soo xidhaha madaxweyne waxa ku leenahay waxa noqotaa kii kaliya ee dastuurka Puntland marba noqon kii dastuurka Puntland ee musharaxiintu ay dhahaan gobolada Soomaaliya waa soo xareena laakiin kii qaban doona tahay kan hambaliyo weyn uga diraya General Maxamed Siciid Xirsi Morgan oo halgamaa weyn oo Soomaalida caan ku ah doorashada u taagan yahay maamul goboleedka Puntland waxaan filayaa inuu wax weyn ka bedelayo Puntland waxna qabanayo wareerka iyo murugada hadda taagan oo ka saarayo waxaan leeyahay hambaliyo Maxamed Siciid Xirsi Morgan waliba hambaliyo anigu waxa ii dheer nolowba kuleeyahay nolow meel joogtaba adugaaga jabo aygu waa Dalxa bin Ubaydullah waxaan halkan ku cadeynayaa waxaan soo dhaweynaynaa oo aan taageero u haynaa musharaxa maamul goboleedka Puntland ee 2019 Maxamed Siciid Xirsi Morgan aad baanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay mudane welcome ku soo dhawow leenahay dhulkaaga hooyo waxaanu ka suganaa isbedel farabadan bamaagta laga sugayaa shacabkuna dhamaantii aad buu ku taageersan yahay waxaanu ku leenahay mudane welcome diraya Maxamed Xirsi Morgan oo u sharaxan maamul goboleedka Puntland ninkaas oo halgamaa ka soo ahaa iyo Soomaaliya ninka hambaliyo ayaa dadka reer Laascaanood ay u hayaan dhamaantood waana taageersan yihiin inuu soo baxo. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله مقعد وخير يسمع عدي كنا مقال Laascaanood دوانا محمد مقليين السرح دورة جنرال مورغان اللي يكون لقرية مدنها Puntland ونسور دوين هدانا الشعب Laascaanood وهايو ومتشاهد لو بهاي إنه قصة موضوع سياسة Puntland والدون إنه سوء عليه من مدي كولا الصالح سنة جعين وتوكي بسنة يقدم يسوي كتير جعان تعذب وحاولنا مدحوين سودو إن شاء الله مدحوين نقولنا إن شاء الله حنرجعنا إن قعدت كسر على السياسة الصومالية قعدت Puntland قبل أسول السنة جعين تراجع سنة قدام يسوي واحد مقالة Laascaanood لكم أنت دباتين بدن ويكم دهين نبتقلي ضرر أمن الآن همر الآن يدو أمال بمال تقدم يسوي كاسي درسوا دعية أمن يحبر الشغل عافماتكو حاجة نبتقلي ذا كهلا وحاب دبسوا نقي أنا ويكي قبيلة تاس أي كتب في السمال قال كما هنبتقلي Laascaanood waayo waxay doonaysaa Soomaaliland in ay Laascaanood soo haysato hadii dadka deegaanka heshiiyeen Soomaaliland joogmayso waxaan leenahay madaxweyne soo noqo soo dhaweeyna hadii la yiraahdo